ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Wehliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa soo gaaray magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland waxaana halkan ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Puntland oo hogaaminayo madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliya Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha uga soo horeeyay magaalada Garowe ra'iisul wasaaraha ujeedada halkan uu yimid ayaa ah inuu kaga qayb galo shir wada tashi oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka lagu xoojinayo wada shaqaynta lagu horumarinayo danaha ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo warfadiyeenada si hadal kooban ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinka uu halkan ku yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin Jimcaha tahay inaan ku soo dhaweeyno garoonka Jeneraal Maxamed Abshir ee magaalada Garowe ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday iyadoo maalinta biri ah haddii Ilaahay ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dawladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddii Ilaahay shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo dalka Soomaaliya dan u ah intaas ayaa maanta hadalkeenu ku kooban yahay soo dhaweyn iyo bogaadin ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaan rajaynaynaa muddada halka la joogo in wada hadal iyo shir wanaagsan oo ummadda maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta aan halkaas madaxdu ay uga wada qayb galaan Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Garowe